السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalkaygii walaashayda quruxda badneeday waanigoo walaashaahani oo kale mar kale kusoo dhawaa muuqaal cusub. maanta waxaan iisidaa 5 tilaabood oo ka dhigaysa qof soo jiidasho badan oo dadka kale saameyn weyn ku yeesha, maadaama dadka dhammaan ay jecel yihiin inay noqdaan kuwa soo jiidasho badan. waxaan idiin soo gudbinayaa 5 tilaabood oo ka dhigaysa qofka soo jiidashada badan. kow, u dhaqan sidaa tahay dabeecadaada caadiga ah si aad ugu muuqato qof soo jiidasho badan. kama dhigna inaad noqoto qof dhammaystiran ama in aad ka badbadiso qosolka marka aad dadka kale u sheekeynayso. arrimahaasi dadka kale waxay ugu muuqanaysaa inaad tahay qof la xamili karin oo dhib badan. sidaa darteed sida caadiga ah u dhaqan oo wax walba dhexdhexaad ha kuu noqdaan si aad dadka kale u soo jiidato. 2, ra'yigaagu ha la gabanin. ra'yigaagu iyo fikirkaagu dadka kale way soo jiitaan. ra'yigaagu ha u qarinin adigoo ka cabsanaya dadka kale falcelintooda. ra'yigaagu si xurriyad leh u cabir oo dadka kale dareenkooda ilaali. markaa sidaas samayso waxaa noqonaysaa qof soo jiidasho badan. 3, dadka oo dhan ixtiraam. ilaali edebta iyo dhaqanka suuban, waxay kaa dhigaysaa qof soo jiidasho badan. dadka oo dhan ixtiraam, kan yar iyo kan weyn. ugu wac magacyada wanaagsan. ku dadaal inaad salaanto una mahadcelin mar kastoo wax wanaagsan ay kuu sameeyaan. caydana ka dheeraaw si ay dadka kaaga fogaanin agtaada. mar walba oo dadka aad ixtiraamto waxaad helaysaa shaqsi soo jiidasho badan. 4, isku kalsoonow. haddii ay yeelan weydo kalsooni kugu filan oo kalsoonida kugu yaraato, waxaa kugu adkaanaysa inaad noqoto qof soo jiidasho badan. marka aad naftaada ku kalsoonaato ayay dadka kalena ku siiyaan kalsoonidooda. sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad kalsooni muujiso adigoo aanan ka badbadinaynin. 5, ilaasho farxadaada. dadku ma jecla qofka cabashada badan. marka ilaasho farxadaada si aad u siiso farxad dadka kale. marka waxaa kuu fududaanaysa inaad dadka kale soo jiidato oo aad saameyn weyn ku yeelato. walaalkaygii walaashayda quruxda badneeday, waxaan jeclaystay inaan la wadaago 5taas qodob. waxaana fili doonaa inaad ku dhaqmi doontaan oo qaadan doontaan. waxaan leeyahay intaana ku kulmi doonno muuqaalkiisa xiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.